kulanti waxaan wanaagsan dhammaan shacabka Soomaaliyeed daliya dibad meel kastoo ay joogtaan waa anigoo Daahir Cabdulla Calasow waxaan halkaan idinku qadimayaa maanta oo aan ku soo jeedinayaa khudbadeedii aan sanad walba jeedin jiray waxa iga afeefa khudbadeeda sanadlaha ah ma qosayso inaan ahay wariye inaan ahay wasiir inaan ahay mataqaanaa arrimo kale waxay qosaysaa kaliya khudbadeeda anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed oo magacayga Daahir Cabdulla Calasow waxaan ku cabirayaa fikradeyda khudbadeeda way ka duwan tahay khudbadii hore sanadii hore aan soo jeedin jiray khudbadan waxaan uga hadlayaa qabyaaladda iyo Soomaalida waxaan ugu horeyn khudbada ku soo qaadan doonaa qodobadaas kor mara waxaa kamid ah xasuusta sanadkii tagay 2012 iyo aragtida marajada sanadka cusub 2013 waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa riwaayadii loogu magacdaray horumarinta far Soomaaliga ee Djibouti ka dhacday waxa kale oo aan khudbada ku soo qaadan doonaa xasuuqi ka dhacay Somaliland iyo damqashada beesha Arab jeegaanta cusub ee Risimka iyo jabka joogtada noqday ee Beelweynta Hawiye waxa kale oo ku jira tiiraanyada taariikh madaxweynaha soo mara Soomaaliya iyo fariin ku socota madaxweynaha cusub Xasan Maxamed Calasow isbahaysiga cusub ee Daarood iyo isku tirintooda labada buurood jalaafada Ismaaciil Umar Geelle la damacsan yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya goorma bilowday khilaafka dhiigshiil iyo waaga cusub maxay 6 sano kadib sidee tahay xaaladdu waxa kale oo aan uga hadlayaa hanjabaadaha joogtada noqday ee beesha Siilaanyo iyo kaftanka sanadka khilaafyada ka jira Puntland iyo Galmudug rajada Farool iyo Cabdi Qaydiid waxa kale oo aan uga hadlayaa dhibaatada haysta Soomaalida ku nool Kenya horumar kilinka shanaad ee Soomaalida iyo heesteeda aqli yare indhahayga maalintii ilmada ay buuxisay iyo geesiga yar ah ee Jimcaale oo ah wiil aan arkayay telefishinka asagoo dhiig baxay kuna geeriyooday booraba markii xabad lagu dhiftay falkaasna waxa uu ahaa iga xasuusta inuu yahay fal aniga xasuusiyay 1992 dhacday ugu dhacday waxa kale oo ku jira khudbadeeda labada jeer ee xalka bixi Faysal Cali Waraabe iyo sababta waxa kale oo aan khudbada ku soo qaadan doonaa fursad aan ku maalgelinay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka loo dhibaateeyo Soomaalinimada iyo dal la'aanta dawladda Soomaaliya waa sidee noqon doonaa mustaqbalka wasiir xag la toosiye waxa kale oo ku jira khudbadeeda sanadka saadaasha sida Somaliland noqon doonto waxa kale oo aan ka sheekayn doonaa labadii jeer Cabdirashiid Dahabshiil maxkamadda isla hor fadhiisanay iyo hanjabaadiisii 2009 waxaan ka sheekayn doonaa masabuurba maswahabar jecle xifaaltanka suugaanta iyo bareeraha Abwaan Ilka Jiir ayaa qayb ka ah yaa ii hanjabay ma beesha dhexe dhamaantood mise beel gaara waxa kale oo aan shacabka Soomaaliyeed iyo anigaba ku faahfaahin doonaa Djibouti ma geli karaa qof Soomaaliya asagoo aan qof Djiboutiyaan aqoon ama qof gudaha Djibouti ka aqoon beesha Mariixaan waa wadaniin Soomaaliyeed USC waxay ku qaldantay Saada Cali Faqash Xalimo Qalifna Mujaahidad sidoo kale maamulka Siilaanyo wuxuu ku qaldamay weerarkii Kalshaale aragtidayda website faraha badan ee Soomaalidana waa ku soo qaadan doonaa waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa
sababta wararka waaga cusub ay ugu bateen ka hadlida Somaliland oo diristeed iyo qaatuma waxa ku jirta aragtida sheekooyinka ama ka sheekaynta qabyaaladda ee qosolka sheekada la magac baxday Allah qabyaaladu kullah barnaamijkaas hadda ayaa idin bilaabaya Soomaalida horta qabiilku way jecel yihiin haddana waxay ku ceebayaan dadka qaar tusaale ahaan marka maanta wasiir la magacaabo ama golo wasiir la magacaabo ama qof siyaasi wax sameeyo waxa dadka isweydiinayaan hebel yuu yahay golaha wasiirada qabiiladood maxay telefoon lacag ku bixinaya cid walba waa ay soo ogaaday wasiirada la magacaabay haddii aan ka hadalno oo aan u soo qorno qofkaasi wuxuu ahaa qabiilkaas dadka qaar waxay ku leeyeen maxaa u sheegay qofka qabiilkiisa oo marka lacag badan ku bixin lahayd waan ognahay qabiilka waa jeceshahay oo raadinaysa qofka haddaanba kuu soo qoray qofka qabiilkiisi soo halkaasi jaaliskaaga ma taqaanaa lacag ka bixi lahayd iyo waqti ka lumi lahaa halkaasi ma taqaanaa uga faa'iideysan qabiilkana jeceshihiina Soomaalida tiin qof kasta og laakiin macnaha ma marka qabiilka ka sheekeynayna isku dishaan qabiilka waa inaad qabiilka isku garataan sida Ilaahay quraankiisa ku sheegay bitaarafo waxaan rabay inaan markuu hore ka sheekeeyo nin professor oo Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay arday ka qalin jabis jaamacad ku taala dalka Masar markuu ka qayb galay ayuu qodbad lagu soo dhaweeyay marka Soomaali badan meesha fadhido ninkii professor ka ahay wuxuu ka bilaabay sheekadiisa aan isku sheegay marka hore anigu magacayga waa sida waxaan ahay reer hebel oo ka sii ah reer hebel dadkii ayaa wuxuu dhaqaarkiin waa la yaabteen laakiin waxaan sida idin leeyahay waxaan ogahay inaad qabiilka jeceshihiin markaan bilaabo qodbadana waxaad ku mashquulaysiin qabiilkayga war ninkii horta yuu ahaa ninka wuxuu markii qodbadiina weydin dhaafaysaa marka say idin dhaafin waxaad ku mashquulahay hadda in si qadimaya in qabiilkayga waa reer hebel ninka wuxuu ahaa nin runtii philosophy oo xigmad badan oo fahamsan Soomaalida iyo dhaqankooda sanadkii tagay 2012 runtii wuxuu ugu leeyahay saameyn badan waxa dhinta aabahay Allah naxariistay waxa la dilay wariyaal la shaqeynay iyo wariyaal Soomaaliyeed oo qaali ah agaasimihiisa ninkii qaabilsanaa Xamar Cabdiraxmaan Maxamed Cali tafatirihi website-ka Sunna Times Ahmed Abdullah Fanax wariyaal badan oo mutaqaana ila daasabti oo kamid yahay Star oo saaxiib ahay waxa dhintay nin saxaafada ka soo shaqeey jirnay oo runtii aad iyagula abaal Allah naxariistay Ibrahim Daawud Mudee Weynax tafatirihi wargeyska xubbi in hadan dhinaca kale sanadka wuxuu ahaa sanad guul ah dawladda Soomaaliyeed dhalatay kooxii argixisada ahaa la jibiyay oo dalka laga qabtay haddana waa sanad si kala haddana marka loo fiirsho Soomaalidii ku noolad Kenya dhibaato badan loo geystay waa sanad laga walaacsan yahay ajdabiyiinta dagaalamaysa ee gudaha Soomaaliya joogtay maxay qaban doonaan inkastoo mar kastaba aan walaal leenahay walaalkeena ay tahay ama walaalka shacabka Soomaaliyeed aan ku tilmaami karo dawladda Turkiga maantana aysan u muuqanin walaal kale oo Afrikaana ama Caraba oo Soomaalida caawanaya marka laga reebo Turkiga sanadka intaas ayaan ku dhaafayaa sanadkan cusubna waxaan rajaynayaa inuu sanad horumar iyo barwaaqo ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku bogsadaan diiftii iyo dacdaradii iyo dhibaatadii muddo dheer soo haysatay inta haddaan ka baxo waxaan rabaa inaan galo shirkii ka dhacay Djibouti loogu magac daray in lagu horumarinayo afar Soomaaliga shirkaas ururka qaban qaabiyay waqti magaciisa waxa la yiraahdaa Somali Speaker Pen waxaan isweydiiyay oo ururka magaciisa waxa la yiraahdaa Somali Speaker Pen isaga magac qalaada sidoo far Soomaali ku horumarin kara tan labaad waxa gogosha dhigay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu yiri waxaan xafladan u qabanay oo aan abwaaninta Soomaaliyeed u yeeraynaa in farqi la hormariyo farti Soomaaliga ama af Soomaaliga la hormariyo in ma taqaanaa dhaqanka Soomaalida la hormariyo marka Djibouti oo dhex marto kama arkaysid hal dukaan ama hal hotel ama meel ay ku qoran tahay far Soomaali waxa ku qoran waa Faransiis ama waa Carabi iskuulada Djibouti oo dhan lagama dhigo far Soomaali loogama sheekay taariikh Soomaaliyeed
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inta aan ogahay macallimiin ayuu wuxuu u diray meel gudaha Soomaaliya ku taalo leedahay xariirad oo beesha Ciise ay degaan waxa uu macallimiintaas ugu diray inay baran afka Faransiiska ama Faransiiska u dhigaan qofka noocaasa ama dalka noocaasa ma bari karaa ama ma ka qayb qaadan karaa far Soomaali waxay taas la mid tahay in yuhud yiraahdaan waxaan hormarnaynaa ra'iisul wasaare yuhud waxaan hormarnaynaa farta Carabiga ama Quraan Kariimka waayo haddii far Soomaali hormariyo uu rabay runtii wuxuu heli karaa inuu horta dadka ka bilaabo dalka uu joogo oo dukaamanka lagu qoro fasaxo oo iskuulada laga dhigo fasaxo oo dadku ku baraarujiyo okay dhaqankan soo laabanaya dadka ka qayb galay oo dhan haddii dhaqanka Soomaalida la weyneynayo ama dhaqanka Soomaali la hormarinayo waxay ahayd inay soo xirtaarto wax dhaqanka lagu yaqaan madaxweynayaasha taaya wada xiraa suuday wateen dadka qayb galay saasi wada ahaayeen daani ma qaan laakiin inta aan ogahay shirkaas wuxuu ahaa shir riwaayad ah laba micno ayuu xambaarsanaa shirka lagu qabtay Jabuuti lagu magac daray horumarinta far Soomaaliya kow wuxuu ahaa balwada madaxweynaha Jabuuti wuxuu leeyahay saar jecel xafladaha marka balwadaas madaxweyne Geelle tan labaadna wuxuu ahaa waji lagu sameeyay isbahaysi loogu magac daray Errism marka qodobkaasi Errismkana qaybta kale aan u sheekayn doonaa waxa iigu xigta xasuuqa ka dhacay Somaliland doorashadii waa lagu shubtay dhalinyartii xaafadda Axmed Dhagax si arxan daran ayaa rasaas loogu furay rasaas nool qaar way dhinteen qaar way dhaawacmeen aniga xaqiiqatan koonfur Soomaaliya soo jeeda gaar ahaan reer Muqdisho aan ahay habeenkii markii aan arinta arkay waan ka seexan waayay soo jeeday aad ii saameysay maskaxiyan wala xanuunsaday kadib haddana waxaan arkay carruurtaasi dadka soo jeedina beesha Carab oo ambaareynayo aad u gubtay dadka dhibaatadooda cadaalad darrada lagu kacay laakiin haddaan la kaftamo beesha Carab waxaan dhihi lahaa waad ka damqateen waa sax waana ka xunnahay anigana maanta dhibaato igu tahay oo xanuunka wada wadaagaya laakiin waxaan dhihi lahaa haddaan la kaftamo sida ugu damqanaysaan carruurtiinana waxaa muhiim ah inaad ugu damqataan carruur Soomaaliyeed waxaan u soo qaaday laba tusaale cadaalad darrada Somaliland iyo xasuuqa waxay ka soo bilaabatay kalshaale lagu laayay dilaad lagu laayay taasi inaad ka damqataan waa idin muhiim oo ambaaraysaan sida carruurtina ambaaraysaan si idinkana cadaalad dad cadaaliye u noqotaan talabaadna waxay tahay anigoo aad uga xun dadka la dhibaateeyay maamulka Siilaanyo uu sida arxan darrada ah iyagoo codkooda dhibanayo dulmiga diiday uu u dilay haddana Axmed Cabdi oo Maxamuud Goodane oo beeshaas Carab ka soo jeeda inaad ambaaraysan ay ahayd maalin kasta wuxuu dilayay intaasoo dad carruur ah oo u dhalatay koonfurta Soomaaliya taasoo kalena sa u damqateen dhibaatada Siinay dadkiina carruurtiina ku xasuuqay waa inaad damqataan tan Axmed Goodane markaas waxa ay ma kartaa cadaalad idinku waxa uu muqarrisiin dad cadaalad intaana waa iga dardaaran yar iyo kaftan waxaan ka hadlayaa jeegaanta cusub Errismka Ismaaciil Cumar Geelle aabulaya waxa isugu tagay Jabuuti waxa la siiyay in Soomaaliya ama bulshada afka Soomaaliya ku hasha laga hirgeliyaa saddex dawladood oo ay leeyihiin hawiye marbu qaldamay markaas waxay ahayd markii USC-da ay xukuumadda Maxamed Siyaad Barre ka saartay dalka ayuu hawiye qaldamay xiisada la geliyay waxay yiraahdeen aqligoodu wuxuu noqday Saada Cali Warsamo oo gabadhii Maxamed Siyaad Barre ku hessanay in qabiil daaradnimo loo eriyado la waafaqash xalimo qaliifo difaaci Siyaad Barre waa mujaahidad Allah naxariisteeday marka way qaldameen waxa la geliyay qadil Errism laakiin Errismkii waxba kama soo bixin waa la ogyahay maanta qasaaraha uu ka gaaray
هوية مركلي قدمه وحوا حلقة محاكمته حلقة محاكمته وها وحي هويسين أرجحصه وحي يستلهن كتاب يقرأن كلمة كحكتين وحبي أولين عرفت إسكولة لديال جلي وإذا ما لين كان عسيجي وباباي دقاليه وباباي عشان ديك وباباي وحي صارتي إن عاصمة إيمان إثيوبيا وحبشي لك يعني تانا وي متقنها بابين لكن إسماعيل عمر قال لي وحوليه هي ضل يوم مدحوينه كيه dadkiisii ciisaha nabad ay haystaan Silayo dadkiisii Soomaaliland u sameeyay nabad ay haystaan hawiyaha miya marka lagu orkacsanaya oo su'aashani aan qabaa hawiye maanta tan uma jirtahay in uu ka shaqeeyo arrin qabyaaladeed oo wax la erism kala danta hawiye waxay ku jirtaa maanta inuu bulshada Soomaaliyeed dadka walaalahooda ixtiraamaan wadaganaashaha ixtiraamaan nabad laga wada shaqeeyo si cadaalad dadkii wixii dhacay la iska iloobo si cadaalad oo siman madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo ummadda ugu shaqeeyo waana tan kaliya isagana madaxweyne ku ahaan karo bulshada Soomaaliyeedna ay uga bixi karto la'aanta tusaale ahaan markii hadda irrismka bilaabeen maxaa socdo oo ka socda gudaha toosan u sheegaya marka beesha daarado kale Buntland majarteen waxay isku xiriiriyeen kilinka shanaad ee Ethiopia kilinka shanaad ee Ethiopia Soomaalida kilinka shanaadna waxay ku sii tiirsan yihiin Ethiopia dawladda Ethiopia marka Buntland kilinka shanaad salka la gashay kilinkan wuxuu ku daawanaya Ethiopia halka buurtaas isku tiiriyeen halka dhinacan kale ee Kismaayana de ogaadeenkii joogay iyo Mareykanka joogay waxay washirayeen waxay dhaheen رئيس الوزراء تحقق كسو جيدا وكسو جاوري عبود وق مدوق marka anaga Mareykanka عبود وق waxba noogu dasanay aan la heshiino Mareykankan nabadda halkan oo kadib markii la heshiiyay waxay isku daabeen oo isku tiiriyeen NFD Soomaalidii Kenya degan halkaas kuwaana siyaasiyiintoodii iyo Soomaaliya ku tirsan yihiin dawladda Kenya marka ayagana buurtaas isku tiiriyeen marka labada buurood sal kala galeen tan kalena runtii marka daarad marka la fiiriyo way ka faa'iideen ana ku faraxsan hawiyuhu waxay sameeyeen way ka faa'iideen sidii ay mataqaana beesha saaqo kale uga faa'iiday way ka faa'iideeno de Buntland waxa ka sameysteen xaqana hadda waxay ka sameysanayaan maamul goboleed meelaha kale Kenya iyo Ethiopia dhulka Soomaalida iyaga maamulaya marka hawiyuhu maalin kasta dagaal ku jiraya hawiyuhu maalin kasta ma adeegsanaya oo lagu orkacsanaya taasi waa su'aal u baahan jawaab waayahay waxaan rabaa marka inaan la hadlo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Soomaalida waa inay arintaasi aad mutaqaana iyaga dhuuxaan waxa ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliyeed Aadan Cabdullaahi Ismaaciil Allahu naxariistee aadan markuu xilka dagay sidoo uu joogay ugu dambeyn 10 sanadood isagoo sariir saaran oo xanuunsanaya miisaankiisuna aad u yar ayuu geeriyooday ma helin maamuus heer madaxweynimo in loo maamuuso beertiisa oo iska dhex joogi jiray wuxuu ahaa on kalbanina hadda cadaawad lahayn oo shacabku aysan raadsanin waxa ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo Cabdirashiid istaagan oo qodbaynaya la toogto dhintay waxa ku xigay Maxamed Siyaad Barre oo afrin military ku qabsaday inqilaabay Maxamed Siyaad Barre kula sano isagoo ah madaxweynihii ugu mataqaana ugu awoodda badnaa geeska Afrika isagoo la ogaa heerka military ka gaaray ay USCD iyo SNMT iyo SDFT fa u qaadeen oo dalka baxsaday wuxuu qaxooti ku noqday Nigeria Maxamed Siyaad Barre ah ninka sida awoodda badan xanuunka wadnaha ku soo booday gaari lagu qaasbay lagu geeyay la waayay taxi lagu qaaday kadibna waa ku geeriyooday isagoo qaxooti ku ah Nigeria ayuu geeriyooday oo la ogaa habkiis gudaha Soomaaliya loogu aasay keentaankiisii dibka loo maray isaga halkaas uu ku dambeeyay waxa markii Maxamed Siyaad Barre ka bax dalkii madaxweynaha ah Ali Mahdi Maxamedna dagaal sokeeyo markaa galay kontraado qaatay badda Soomaaliya sunu ku shubay waxa ku soo baxay Jaal Maxamed Faarax Ciidid oo yiri madaxweynaha xaraka ma jiraan Ali Mahdi Maxamed maanta oo ay ka soo wareegtay sanado badan xilligaas
qiyaas ahaan ku 990 iyo labadii de 20 iyo dhowr sano ku sano ka soo wareegtay wuxuu qaxooti ku yahay isagana maanta magaalada Nairobi oo si xor ah dadku uma dhexmari karo jal maxaan faarax ay did kursi ku qabsadana asagoo dagaal ku jiro ku geeriyooday ee xabad ku dhacday asna halkaas uu ku baxay waxay Cabdiqaasim Salaah Xasan oo arta lagu soo doortay Cabdiqaasim dadkiisii dowladnimada ka hor yimaadeen ayuu maanta wuxuu qaxooti ku yahay Masar Qaahiro jooga oo asaga halkaas soo fadhiya maanta soo cimriga ku jiro ayuu halka qaxooti ku yahay Cabdiqaasim waxa ku soo xigay Abdullaah Yusuf Ahmed intuu yiri xoogan ku maamulaya dalka ayuu xabashi keenay oo kumanaan kuna Soomaaliyeed dilay ayaa maalin dambe intay Janday Faisal ku qabatay garoonka ku qaabishay Jomo Kenyatta ee Nairobi ay ku tiri xilka wareeji intuu xilka wareeji ayuu qaxootinimo Ingiliiska ka weydiisay Yemen asagoo Yemen qaxooti ku ah ayuu ku geeriyooday Shariif Sheekh Ahmed kursigiisii bedelay Shariif xilliga maxaakiimta magac islaamo mutaqana carruurteeda ku dagaal galiyay markaana dawladdu noqdo nin madaxweynaha noqdo dagaalka ku dagaal galay inkastoo kuwa dala dagaal ay ahayd xaq ah inuu dagaal maanta isagana doorashadii waa looga adkaaday Xasan Maxamed Cali Sow ayaa madaxweyne adag ka adkaateen leeyahay markuu adkaadana Shariif maanta dalkiisii oo isku aamin waa inuu joogo wuxuu meengale weydiistay Uganda wuxuu qaxooti ku yahay Kampala caafimaad aantiisana maanta kama warqabo inkastoo dadka qaar leeyihiin caafimaadkiisa ma fiican xagga xasuusta iyo maskaxda asagoo maanta ah sanadkan inuu ku dajin noqon doono qiyaas iyo halka jooga qaxooti ku yahay taas waxay ka maqaatay ka ciisaarto marka loo fiiriyo nin madaxweynaha Soomaaliya intuu soo taagay tartan inuu qof kala tartamay ka guuleysanay ay ka maqaatay ka ciisa oo waaba iska sunnaha Soomaalida oo looma ogola in uu ku laabto Xasan Maxamed Cali Sow maanta waxaan leeyahay waxa kula gudboon inaad cadaalad fasho oo iska ilaawo damul jadiid terrorism iyo waxyaabaha oo aad noqoto madaxweyne muddada 4 sano oo hayay mataqaana dalkii nabadeeyay oo cadaalad ka hirgeliyay oo sinaanka hirgeliyay oo markuu xilka ka dago aanu og inuu ku soo laaban doonin oo mucaaradka ay ka xoog badan doonaan bari haduusan deehin macangaga in macangaga ku military isticmaalo soo ahayn in doorasho xor looga adkaan doona anigu macdaal fal doona oo dadka horumar ma gaarsiin doona mise wuxuu soo diyaarinayaa isagoo 54 jira inuu asna qaxooti noqdo oo jidkii saaxiibadii ka horeeyay madaxweynayaashii ka horeeyay oo maro taasoo aan kaliya ceeb ku ahayn shacabka Soomaaliyeed ceeb ku tahay ayo anaga madaxdeena ama madaxweynayaasheeni inuu maalin walba nolol liito ama tiiraya oo ku tagay waa wax aad u foolxun waana waxay isweydiin Soomaalida waxay yiraahdaan tagta dhaafid timaado qabo laakiin ma aha waa in la taariikhdu la raaca waa in la xasuustaa waa in la isweydiiyaa waa in la sameeyaa research cilmigana waa sida taasi madaxweynahan leeyahay waan arki doonaa halkay ku dhamaato waaya Ismaaciil Umar Geelle Djibouti waxa lagu qabtay shirkii ugu horeysay Soomaalida ciidii cilmaha sahayo ayuu cilmaha Maxamed keenay Djibouti shir lagu qabtay wuxuu madaxweynaha tahay wixii ka dhacay waa la ogaa dagaalka sokeeyo aad loo ogaa wixii ka dambeeyay maalin walba shir ayuu qabanay wuxuu gaaray in ilaahay kuma samadiiday oo baarlamaanka xubno sharafeed ku yeesho maantani waa ka halkaas u fadhiya dadka Djibouti qiyaas ahaan ee walaalaheena ahaan waa jeclaa dadka Djibouti haddana qiyaas ahaan 700 kun qof waa tira ahaan ma dhaba inta ku nool caasimadda Muqdisho waxay noloshooda ku tiirsan tahay dekada u furan 77 milyan oo Itoobiya ah looga adeego marka Ismaaciil maanta ma rabi tabarbarna inay shaqayso ma rabiyo dekada Ismaaciil shaqayso ma rabiyo tan xamarna shaqayso ma rabiyo Ismaaciil maanta Soomaali uma galay ihsaan wuxuu ugu galeen dadkiisu ihsaan u galin ninkii wax ka diiday wuu dilaa wuu sameeyaa way ka soo carray dadka wax galka dibadda ku nool Cabdiraxmaan Boor waa kana qaxooti Baaris ku ah ee ka soo carray dalkiisa marka Ismaaciil Umar Geelle حقيقة waxay tahay inuu si u fashilin jiray dawladda Soomaaliyeed oo wali jalaafadii oo kuwa dadka Soomaaliyeedna ay fahmeen
أنا أسمع إلى سنة أنا وكسر الله دون أنت سأتجيا waxaan ka hadlayaa goormu bilowday khilaafka waaga cusub iyo shirkadan Leadership ama Dahabshiil 2009kii anigoo Holland jooga waxaa la dilay oo naxariistay agaasimihii Horn Afrika Saciid Tahliil Axmed marka dilkaasi waxa fuliyay oo ogaaday laba nin oo lagu kala magacaabo Xasan Xanaf Xaaji iyo nin lagu magacaabo Axmed Nuur Oodiini أنا وكهالله عن باري فالكاس أحمد نور الديني يحس حنا في أي كدر نكا مسكين كوريها وحكى له عن قري إن متقنا إن شكل Dahabshiil أي سلاي ما قلنا يسوس سومالان درس وصبح عبد الرشيد وإلى صاح اللي ويهجبوه ويجري حداد كساري ويست اللعبة تانكو وصمين وادوغان وان كأمسي دبتنا هوستين كيش كده أستقرب السولة إلى الله يرقب صدي وبسيط كوالي حرق هوستين كوا كجوري أنا الله يرقب صدي رجع ضيالها يمد هون وشركة السعودية وحكم لها محمد عمر ياري سعيد حاج عفق الله أحمد عبد الداري عبد الله حسين ماريا إن الله حرستي على دير الله بنتي وشركة يري حاجة شرعية قبل سنة هاي وحالوه الشيء إنه عبد الرشيد حرية إنه عد كليه لكن عبد الرشيد يجري أنا جبت تقانده شركة إن متقانده وحن لها برجع له إذا أسقبرنا كما هرو وأنا قاعد تخلص أو تنبين وبسط كائن حرا وبلان دي أرت عبد الرشيد هرجع لما هو سنبور وأنا إبراش إسحاقه ما قانوه ودي غير كسرته ومركز طوه هالجو يعني وحنا برجع له أيوه سنبور كده وأنا ما الله سبنا برجع له ورنتي waxaana xusud mudan waliba muddadan nimanka ishaynay ma dhicin in hal nin oo reerkaas uu ka soo jeeda xajiga Dahabshiil ma wiilka ka soo jeeda Sabuurka ay hanjabaan ma sadii arinta taasna waa horta arin aw sheekeynay عبد الرشيد wixii noo socoto waxa ka muu faa'iidin wixii aan qorayna waa sii waday intii aan sheegay xaqiiqo noqotay anna wuxuu isyaadiyay in aan runtii wax badan ogaado oo aan ka malaynin in qof ganacsada ku dheernayso in shaqada dhibaato Soomaaliya gacan ku leedahay in dhibaato Soomaaliland mataqaanaa inay gacan weyn ku leedahay sida aan sheegay noqotay waa kana xilsi xaaji carigeyn madaxtooyada waa kana Saacad Cali Shiro oo aan Ingiriis ku joogay waa ka shaqada Soomaaliland ba ay noqotay meelada dhibaato ka socoto qof walba uu yahay laba maxkamadood ayaa soo fariisan oo ana kaga sheekay doona qaybtii dambe aniga Cabdi Rashiid waxa rabaa laakiin inaan ka hadlo dadka qaar waxay yiraahdaan daahir wuxuu nacab yahay baashi Isaaq dadna waxay yiraahdaan waa loo hanjabaa waxa xusud mudan weligay intaan joogo saxaafadda aan ku jiray beesha وسيلاي كذا شيء هبرجع لمويه بيرها كله إسا ولي يقفني مسوي هنجيب كارهان دي أكتر مركل هذا إن باش أنقر حاجز كي ساعة نصها وكارهان أنقر حاجز كساحب عنها ولي هبري يونسته وكل ذلك عندي قف متقنا رنتي سيد مدلي مصطفى الشين وكرا بدي وهالقعدة يمسكني بأكتوبر أو مويه مع أساسه وسكجر هذا رنتي قفدي على قطع وجري كريا لكن احترام أنا ده ولي إنه معنا ما يدح بارد أنا يو تذكر كله وأكيد قلنا حاجة باشا سلاي عن شيء إنك صدق قارف يعني وجرا إنك بعيد اللي يكرنتو عند منطقنا أدي احترام وحشمنا قد حيس هذا نوع أكيد صوّع أيوة كله قالوا قد لي أنا ما تقاني رهيب البان له هذا ده أنا كراهرين حتى وحافي عن قفك إني كراهران مكتو ولي ورني كان محد كرتان لكن دي ضدن أو يقدر أدوبن إني قف وسكش قيسنا يو وسك مسكين هاد هالك اسك جوجوس اسك جوال استوى اسك قرناي وذ هنجبان أما ده قف كله حتى سياسي هذا أمباسطور عبد الفتاح أو إيرلند فريج السومالة ده والله هنجبي وكا الكثير وكا والله هنجبي هسه عاي كسو قاضي يعني متقنا قف الفكر كيسو عبر موقت أقدر الله كفتمو أنا وكيا وعدتك موقتي نوين كساس موقتي
والجبهدينta iyo hanjabaada iyo waxa ma taraan moogtahay oo ku yahay qsada moogta aniga ma aaminin ba waligeena inaan qof bini aadan wax iga qaaday ma aaminin anigoo 12 jir 13 jir ayaa sumaray mataqaanaa farjano ilaa masagawa 1998 marka deedin sida ku soo barbaaranayo saa jabhadintii u yaqaan marka ma aha inaad cunug yaro mataqaanaa iska soo dirtay waxa fiican qofka markuu wax sameeyo moogtahay waxa fiican inuu yiraahdo inuu wuxuu sameyn lahaa iska sameeyay moogta oo san dadku u hanjin waa casnimo moogta qaybna casnimada kamid mid ay jirbari reerahaas oo halka magaalada degan text message ii soo qoray يعني شرعي أمرسي بوليس كان جاي وري بدقر الله يراقب صدي محكمة سوس تاجي حبسي قال الله دري وحيد أول لوجا موقت مركز كلين دوس كهذلنا بس كهذلنا ما عدت إن له هنجوا معها موقت كوبا كان الله كفت مريرك كوبا وحياها آمسن أنا مريرك ندهي وعندي لها ضد كسبية قانا مراها إذنكو موقت إن رمودجها وحط قالي أفجوي مركز وحركة dadkii oo oynay in Axmed Ehbal ka asaasay ma taqeeninaha maalmaha indhihiisa oo xakam muuqatay dhiig ku jiri inuu wax dilay waa ka sayn markaas uu dhaw maxaa dhacay leeyri in Axmed Ehbal ma ka saysaha lama libaax as dilay markaas uu dhahay walle waan ragay aawe markaas lagu yiri waa ku waanti markay sidoo ninkii mudug yaama jiirka waa nin laba dawlad dilay ay maanta reefku isku soo baxayaan leeyri waqti marka ani kuwaas ku ay lamid yihiin laga wada dalka waxaan dhihi lahaa waxa fiicnaan lahayd malaha in beeshan habar gidir aan ka dhashay soo dejiyaa barco galbeedka barco iyo habar yoonis iska banaysa meesha marka ay looga la xaalad si noqoto tagasmiye qaar leeyahay waaya inta ay kaftan waxaan rabaa inaan ka hadlo Puntland iyo Galmudug Cabdiraxmaan Faroole dad shaawalan maxaa saas hebelkaana ka daran ayuu noqday oo ujeeda maanta odayaashadku xiriyaa meesha diwaal usad meesha beelaad degan beelaha Soomaalida kale ma awood badna cashara waxa la qaladku waa macalin cashara badan soo warno in qabiilada Soomaalida isu faani karin hadduu damac wadana asiga wiilashiisa waxa kama qabanayaan meesha marka sida ay muuqataa Puntland Faroole wuxuu gelin doonaa colaas keeye taasoo aan jeclahay in runtii aqliga shaqeeyo oo odayaasha deegaanadu mataqaanaa beelaha ee arintaasi wada jira oo hortagaan wayo xilligii hogaamiye kooxdooda dhawaatay shacabka maanta hal guriga wala degan Soomaalida oo dhan wax walba la horumar idaacadaha la heystaa telefishinada la heystaa internetka la heystaa wixii socdo waa la arkayaa ma fahamtay taa waxaan leeyahay odaga dalasi kaftan waxaan leeyahay ruux faqiir oo ficiltan baasi fi ku soo koray fadul badana markuu furun helo waa Faroole waxa ay xigay Galmudug waqti badan soo geliyay marahana dad ma fahmin markii aan sameeyay astiraama ogtahay Galmudugay waxaan uga hadlayay dadka cadawga beesha ahaa dhibaatada horseeday ayaan uga hadlayay waxaan la ogtahay Galmudugay in la gaaro goortii nin gumaysi raacay nacas oo ku geen karin marka abdi xasan awaal qaybdid muddo soo dagaalamay waa soo jabhaday USC ahaa wuxuu dagaal ciididu ku sii ku qabsaday jaal maxafar ciididu dagaalay taliyihii booliisku soo noqday anuu madaxweyne waxaan la ciid maadaama uu sheegtay inaan dib ku faanay wuxuu noqon doonaa waxaan lahaa madaxweynaha Soomaaliya isaga ismaacaad istaagi doonaa tartami doonaa inkastoo ogahay hadii Cabdiqayd wax laga sheego ama Faroole wax laga sheego ama Siiraax laga sheego in Soomaalidu dhibaato la haysto ay tahay luule beeshaynu nacab yahay oo haddaan aniga Cabdiqayd wax ka sheego beeshada nacba wadan silaashin beeshada nacba qofkan waa siyaasi isaga masrax yimid waa la kritikareeya waana dimuqraadiyadda xoriyada qowlka asaasa anuu waxaan muwaadin Soomaaliya dadkayga horumar gaaraan rabaa oo inuu meesha dal kale ma leeyahay anigu dhiigayga waa Soomaali afkayga aan ku hadlay waa Soomaali diinteedu waa Islaam oo ni Soomaaliyan ah dhaqankayga waa dhaqan Soomaaliyeed haddaan ma dadkan magan u ahaada haddaan dalkayga aanan ka ilin horarka iyo dhibaatada marka madaxweyne Soomaaliya Cabdiqayd ka sugay inuu noqdo waxaan lahaa muxuu qaban doonaa laakiin odag markuu bad soo ciyaar wixii ku soo celisay
ودنباينتي قلمودك انتو أفرنا شيء يعني مسار مدحوينها قلمودك أنا هاي أنا وحنا لي هاي مركا أنا كوح كلا وقوس بيننا أبو ضمع مدحوينه وكوجره وحبنا كسوقيني إن أتماضو وأنا كلنا هكون ريون إن عبد قيديدو إن قلمودك كان قط مدحوينه كلية واحد وأنا غكرتها وأنا كوا أقولنا وحبنا في صوب بارني وعلوني عروت عيديدا كميدا هاي واحد سمي صوت وعلوني فهمت لكن ما أنت حق يعني هو قبصان يا هذا وأكون صعبين إن أنا سود دوو خلق كان مدحوين يكون غكرتنا وعيتها إن بيرها أسكت درتي يدك أسكت الشيء يعرض درتي أتقول بيرها أسكت مادان لا اسكو منطقة لا اسكو هالقاس عفس أتكون تستبيرها أيضا اسكو عفيان كدبنا عطسو شرحضه سد ديمقراطية أو حرة هذه من قري كفاني هذا سكولتها أنا القري منطقة أنا حيرس يعني أبغى أقول لنا خبير شر تجويس هذا عبد القيد هو بينا تجويس قال كعينا ما أنت ولا جاء ود بدين ولا جاء توية لأنه هذا عقولته يحتاج دفاع كذا تقول دفاع لكم الدفاع يسوق تقعنا ويا عبدي واكو برنو لواتين دور سنه صاحب هنا وجوجنو باش دخ سعتي وحتى هنينكم ويلك داوع ما عندن كلا هين وحتى كان ويلك دنتك كتعسين وحتى هنينك دنتيسا فيسدا وحتى ويلش إرترياشي باشا ساعد او داوعه oo wada liitaninka ka gadanaya guri Nairobi aan wala amri tagay ceel ugu sugootiyay magaca isaga dirin halkaan 100 wiil amarayso oo daahir cala soo galmudugna si constitution ee dawladda waa dhisantay marka waxaan ku leeyahay dagaal oganimo dabni maxamed kalaayna yaa taa dumarkii caruur sabanimaan deynin baa tahay dalkiisa hooyo dollar system baa tahay dul ruux ku nool iyo dariiq joogsadata kaasan abdi qayd uga baxaya waxaan ka hadlayaa dhibaatada haysta Soomaalida Kenya xaqiiqatan Soomaalida Kenya dhibaato haysato dhibaatada ay tahay de Kenya way leedaysaa waana yasaysaa qofka Soomaaliga ah la dilay maanta askariga markuu caawiyo biir wuxuu ku caba ama kalaabida ku aado ama reerkiisa siisto sida xayawaanka Soomaaliska ugaarsanaya hanti badan meesha taala dawladda Soomaaliyeed kama hadlayso de argixisada waa Kenyaan waa Soomaali waa Mareykan waa adduunka oo dhan qofka Soomaali ma aha argixisa we are not terrorists but we are Muslims so arinta waa in dawladda Soomaaliya dhibaatada haysataahi shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya waa inay wajahdaa bulshada Soomaaliyeedna waa inay aayahooda ka fikiraan waa inaan loo dulqaadan kursiga ee dhibaatada ay haysto dawladda Kenya way taqaan Soomaali waxay tahay laakiin waxaad moodaa in Soomaalida ku nool ama Soomaalida NFD kilinka mataqaanaa degto waqooyi ee Kenya sidii Faarax Macalin oo kale inay maanta liitaan oo runtii aysan ahayn dad Soomaali u damqanaya Yusuf Xaaji oo kale wasiir deegaanka Soomaalidkiisa la waxeeyaa inkastoo aan aad u bogaadinayo wariyihii Yusuf Xasan oo hadda MP ah xildhibaanka kama kunja ah inuu aad dadaalan ka xumaay waliba in qarax la beegsado oo lagu dhibaatay laakiin waxaan leeyahay dadkan dhoofsugayaasha ee muqaylinta u badan iyo gabdhahan iska masaakiinta ee jooga isli in habeen kastaba kuwada ay guryahooda u galaan runtii waa wax taariikh xun waay madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu yiri qarax markaan maqlo Kenya ka dhacay waa isli ka dhacwanaha saan u nahay ma aha isli kaliya ka dhacay Soomaaliya ka dhacay qarax maalin kasta laakiin Kenya متقنا دوائني أمان كذا إني إلى شتوي أيضا معناه ما إن ذاك الصومالي كله تكريا تاسو وحكي إيمان دونا مستقبل كو حكي إيمان دونا عداوة ما أنت بقولال الصومالية يقول الله عند الكودي كان عصده في أوغوريا يوغندا مركا كاين إذا ما ذو حجون جودها الصومالية هيل ضمن أم بيوتان مركا سيد الصومالي در رما هذي نقول مريان ضد كاين الصومالية سيد الله ما قرأ أريد أنا حقبا إن دبلاسيين الصومالي ده يدولة الصومالية الجار كفيرسو ولو أرك وعن كله يا كلين كشنات أنا عمرك هوري وعن سكاهاي أنتي إثيوبيا سكاهاي حقيقة وجعلي إثيوبيا بريق أحمر جوجنا سيدا سنها يرنتي سيدا سنها إن إثيوبيا كنا عملين كرمائي
ولقينا سدح جيران إثيوبيا تجي كمنا راجل حرب بدنا وندح مرن إن ليش علاقاتنا هذا مجعلان ويا إن النقطة تعجوز إن النقطة العمليات من يوم سبتوده waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta horumarka kilinka shanaad ee Soomaalida Soomaaliya ma leeyahay Ethiopia leeyahay laakiin kilinka shanaad inaan ka hadlo runtii ninka madaxweynaha ka ah Abdi Umar Ilay Abdi Umar Maxamed Ilay magaca saasane anigu dadku waxaan ahaa aad mutaqaanaa aggressive oo ka soo horjeeda nacab laakiin hadal uu jeediyay oo uga hadlayay gobolka iyo markaan dasay xaqiiqatan hadalkiisu waa ka helay waxa uu yiri hadalkiisu maxaa kamid ahayd Faarax Macalin wari walaalkii jooga Wajeer iyo Mandheera ka kuuyada iska qafaalanayso dhax oo xirnays kamana hadli karo dhax looma ogolo wiri in ma taqaanaa ay far Soomaali ay ku dhigtaan dukaamankooda ma fahamtay laakiin wuxuu yiri halkaan waa kana isbitaalka ugu weyn ku yaalo horumar sameeyay dadkii wuxuu sameeyay ganacsi u sameeyay waxbarashada iskuulada waa free isbitaal ma taqaanaa weyn isbitaalka ugu weyn ma taqaanaa anta Afrika laga furiyaa meesha inta aad u qurux badan daarta adiyaysid wuxuu sameeyay horumar ya qurba joogtii ku laabtaan deegaanka ka shaqeynaya ma fahamtay wuxuu ku faani kara dukaamanka far Soomaali waxa kale u jiri qof Soomaaliya oo joogo wada halkan kilinka shanaad qowmiyad kale qof ah intuu yimaado askari ah mal hadli karaa ku dhax kibaanda sharciga ah mal dhigi karaa wari sharciga qofku waa Soomaali halkan wajigiisa anfiraha Soomaali ma taha okay that's fine marka taas runtii waa dhinaca fiican waaye runtii in lagu bogaadiyo ay tahay laakiin dhinacna maxay tahay asna de waa kan dhahaya maxay meelasaan nahay oo iskaga waashay waa kan dadkiisii ogaadeynaya loo adeegsanaya suuqay meesha la dadkiisa loo il gareeyo oo la hadlo oo la wada hadlo maxay oo laftu waxa qadar ogaadinku waxa qadar dhulkooda u dagaalamaya waxay iga rabaan dadku ma fahamsana Soomaalida ay waxay rabaan ayaga in xamar laga xukumo ay u dagaalamayaan oo Soomaaliya ay leeyihiin ayagana waxa leeyahay Soomaali ma tihin Ethiopiana tihin asaalada ka xukumaya inta u baalas ku haystaa waxaan la yaabay oo aan hees ka sameeyay qof Soomaaliya maamulada Puntland iyo ilaa kuma sameeyay Somaliland oo dad Soomaaliyeed ay joogan oo ya inta qof ogaadeen qabto ama ogaadeen ama ay wax u dhibayaan xabashida xitaa qofka haduu dambi galay ayagu may waxayaan oo iyagu ay ma taqaanaa ay maxkamadayaan oo dambi ku qaadaan maxay tadadimo xumo inta la ee qof Soomaaliya oo walaalka ah aad ugu dhibayso حبش ودي بيسو أو تقرأ حنيها قد كرديان وعن إيري I love them أو أنا لف ولا لها أقادينية أحمق كيه لي أم حارك ودي بيو عقلي يا رمية ذوين نينكي أريد الربا إن أنت هذا كمقان إني بريكو إيمان أحمق كيه لي أم حارك ودي بيو عقلي يرمي أوغين sababta loo ugaarsadaa only inay tahay abasiri in odan oo asaw laga xukumo marka heestaas caqli yare way soo bixi doontaa gabadheeda waxa sharafan siiyay oo ogaadeenaya wayna soo qaad doontaa laakiin macnaha kama dhigna in horumarka kilinka shanaad aan diidina waa dad Soomaaliyeed maamulkoodu haduu u dadaalo waa lagu amaanayaa لكن قد يدي سكري أضد كلنا السبب اللي ضدكين حسوقي تامة أهمنه لكن وحلا يا كيلين كشنات وحكي صعد هذا هرمر إن كستو فينا لهيت إني حرية جرته وضد كل قول بعدين وياه ما اللي وتو كوي صدق يبشة يا إنه يجوا حقبتين ويلير والله نحرست مجلس له وش يجمع عليه وديك وكقبانيو هذا ويل كاسي لوكتي سوق عميت وأنا أركي رصاصة كل فتين إلى هذا لسه التعبير مع سيلع يو مسبح مركب بورة متجين وهو هنين جيسيا
حقيقة إنه المكسو استكتو وايو ويلك وحن كيابي ساس أسوفيني منه وح أويني يوح جحانجي وطها مرهين تو جد أبرك صارتي هبين كاسي رنتي وحن تلنا يويلك إن النقض صاحب على النقض الحرف لي شو محيا لي وجعله جيسي يعني قف جيسي وجعله ويلك جمعالنا وحلنا هاي نينك الدلي جمعالتك كانت أشياء نينك الدلي ويلك عدالة الهور كينا runtii wuxuu ahaa nin geesiye waxaan ku taamayay inuu dhaawac ka bogsan doono laakiin ma dhicin jimcaale wuu dhintay jimcaale laakiin wuxuu geesi wuxuu i xasuusiyay qiso i soo martay 1992 inuu joogo Buurloowe waayahay marka la sheekeysanayo siyaasiyiinta marka beelaha Isaaq runtii waxaa jirta moogtahay hadalla ka dhac moogta marka beelaha Isaaq waxay leeyihiin macnaha marka la sheegsanayo hawiyaha waxaan isku nahay irir saas ku nahay ya de markay rabaan waxay ku leeyihiin wala weyn tahay moogta laakiin ay waxaa jirta sheeka jirto xilligii shirka carto furmayay Cabdiqaadir Xasan أنا الله صعدي waxaan tagnay Hargeysa الله نحرسته إن جوكر هاي هو جامي وين السياسي محمد حجب راعي قال عبد القاسم الركل مي يو جال قال دخل السعودية والعقد بقول كنا $1 يوسي سوريا ويكون الشيئين إنه شركة عتتها دورشته وقاله هدوم يدحونه جولستو والسيو رئيس الوزراء كديبه عبد القاسم يكون نقضي رئيس الوزراء مصينين سيد بلانتا مفولين wuxuu ka dhigay calaqa lifqaleer taasoo ay siyaasadii qadamay taa laakiin waxay macno u tahay in siyaasiyiinta beesha Isaaq ee Hargeysa jooga si kasta ay u qaylinayaan ama wax kasta ay leeyihiin aysan ka ahayn ahaan run oo ay mar walba dalahooda ilaashanayaan laakiin qadiyadii madax banaanida iyo goosashada waxay gashay shacabkii ay u sheegeen sida looga bixin ay ku adkaa doontaa laakiin qaarkood sida adna aadan dhaqtaro kale ayaa koonfur Soomaaliya تري وح أرجع الصيب برعبدات محمد حاشية يجري مركا أنا فيصل على ورابه مركا الفيريو وحاجة تقد يدرس كود الدو حلقي دور الشطة أي واحد يصوب على قبر يروح عند الله وتوجره دور شو سمالن وحيقول تري أب يا تاجريسا وحنقول هاي داهر ريالك هنا تاجريا هاي أنا نكاس حسب قضوا بس كل وين marka shakhsiyadeeda waxaan taageeray udub waxay ugu tiri aab ma taageerin waxa taageerta adar Faysal ala waraaba taageer hadalka gabadheeda marka wuxuu iga baxay inay jiraan inay jirto jagaan taariikhiga ahayd oo caruurta yartay ay aaminsan yihiin in Faysal dadka isaga dhowna ya Soomaaliya soo dhawaada ama calaaqad leesha wax xun ma inaan dad dulmino isku ma dhawaan wax kala sameeyno marka saas daraadeed ayaan dhowr jeer Faysal aan baagay jiray markaan Faysal dadka reer koonfurka kala hadlo waxay yiraahdeen Faysal Soomaaliga yiri caruurta xamar ku dhalatay waxa ay gadhow kuwa ku dhashay asaaba xaalaga bixi waxaan dhahay arintaasi maalinta isu yaray waxaan ku dhahay hal soo yimaado maanta arinta Faysal oo safal boodnimada ka dhacay qadafkaas inna loo sheegay maayo waa nin garxad soo wariyay xaalaga bixinaya maalintii labaad hadana anigoo meel isla bal qac ka sii xogaaya Faysal doorashada kala soo dhawo u dhis ayaa waxa lagu yiri soo Faysal maalinka Sacuudiga markuu joogay laha carabka qofka Soomaaliga ma carabka laga jaro tiina xalka laga bixiyay marka labadaasba marba Faysal seef la boodnimadiisa inka soo saaxiibkiiyo aan aad mutaqaana u jeclaabto u taageersanahay waayo isaga dima aad ku xaqariya wuxuu qabo ku sheegaya qofka taana waxa ay xalka bixiyay marka labaad xalka bixiyay laakiin beesha dhexe ee Soomaaliland balaasa tii waxaan ka suugaynaa inay xalka bixiyaan adna iyo waxaan ka suugaynaa adna ada dhaqtar iyo Maxamed Xaashi Cilmi waayo labaduba kelmado runtii aysan geerin beelaha koonfurta dhiga ama hawiyaha ay runtii ku hadleen waana arrin aan qabin qabyaaladda laakiin dhibkeeda iska leedahay